fariin degdeg oo ka timid beesha caalamka ayaa si wada jira amar loo siiyey mucaaradka la magac baxay golaha mustaqbalka iyo villa Soomaaliya taasi oo daba socota wada hadaladii dhowaan beesha caalamku ay ku dhawaaqday in ay dhex dhigayso villa Soomaaliya iyo mucaaradka kuwaasi oo dhowr jeer fashil ku dhammaaday ugu dambaystiina loo mudeeyey in isbuuca koowaad ee bishan berri bilanaysa uu ka qabsoomo magaalada muqdisho caasimadda jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya fariinta wada jirka ee ka timid beesha caalamka ayaa si cad lagu muujiyey in isbuuca ama toddobaadka koowaad ee bisha luulyo ee berri bilanaysa uu qorshuhu yahay in muqdisho ay ka dhacaan isla markaasina dhammaan dhinacyadu ay muqdisho diyaar ku noqdaan wada hadaladii villa Soomaaliya iyo mucaaradka kuwaasi oo ka kooban golaha mustaqbalka Puntland iyo Jubbaland iyadoo dhanka dowladda laga rabo in ay keento wafdiga uga qaybgali lahaa fariinta beesha caalamka oo ahayd mid la yaab ku noqotay dhinacyo badan oo qudareynay in shirkaas ay ka qayb galaan ayaa waxaa si cad loogu muujiyey in shirka toddobaadka koowaad ee bisha luulyo muqdisho ka dhici doona uu u dhexeeya laba daraf oo keliya kuwaasi oo kale ah golaha mustaqbalka oo ay ku wada jiraan mucaaradka muqdisho iyo sidoo kale madaxda Puntland iyo Jubbaland iyo villa Soomaaliya balse uusan jiri doonin dhinac saddexaad madaxweynihii sagaalada jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa lagu wargeliyey in uu laba go'aan kii u ronqaato go'aanka koowaad in uu ka mid noqdo golaha mustaqbalka iyo inuu si gaara si madax bannaan ula hadlo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha muddadhaafka ku jooga villa Soomaaliya balse dhinacyada ay qorshuhu tahay inay muqdisho ku wada hadlaan ay keliya noqonayaan laba dhinac oo ah mucaaradka golaha mustaqbalka iyo villa Soomaaliya sidoo kale fariinta ka timid beesha caalamka ayaa loogu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu ciddii kale ee uu mucaarad u arko ama uu danaynayo ay u furantahay inuu si gaar ula hadlo balse ajendahan uu yahay kama dambe isla markaasina ay beesha caalamku soo go'aamisay lagana rabo inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gudbiyo listiga mas'uuliyiinta wada hadallada uga qaybgalaya shirka uu qorshuhu yahay inuu xayndaabka xalana ka dhaco toddobaadka koowaad ee bisha luulyo